السلام عليكم جايز وحيوان يرمدو بالير سوغنيو لكن ما اوكي سو مايمك السلام عليكم جايز اسكو ورا رمضان مبارك واشكو برشيد يا فيديو عصب in badan runtii kala maqnayn maanta waa Ramadan waa inoo 13 inkastoo doonayaan series noo bilaabo Ramadan tan noo socda laakiin uu yar suurta gali weeday oo yara mashquulsanaa yaro daala jirta oo iska galin dambe oo waxa yar jira joojuuci kii gacaha halkan wiila taagan yahay inkastoo ay soo dhawaan ku leeyahay marka anyway ku soo dhawaada video cusub iyo one quick tip series kan bilowna hore ee ahaa one quick tip ee lagu talagalay inaynu hal tip ama hal shay si degdeg ah u sharaxno maanta waxaan rabaa inaynu bal isla eegno waxyaabaha loo yaqaan product photography ama markaad product soo ahaan doonayso inaad sawir ka qaado adigoo basically deemkan quarantine waliba ku jirno qof walba gurigiisa joogo hadaba maxaad samayn kartaa qof markuu creative nimadiisa uu u baahan ilaaliyo waqtiyadan kale waqtiyo uu qofku dhinaca amal ku qaadan karo iska lumin karo so mates si waxaan rabnaa maanta marka inaynu sameeyno product photography zero basic aynu waliba qofku soo gurigiisa dhex jooga sidee uu product photography u sawir karaa ama agabyada yaryar ee simple ka ah isagoo lightingkiisa isku dheelitiray marka maanta waxaan eegi doonaa bal product photography ka sida qofku soo gurigiisa jooga uu sawirayo ee uu habeyn karayo lightingkana isku balance garan karayo marka bil la socda marka guys waxaan sameynaynaa maanta inaynu product waxaan ka dhigaynaa this one waa chill bal malaynayaa as I think guriga ka dhaxlay oo wala shay isticmaalisay marka waxa weeyaan waxa loo yaqaanaa aloe vera sorry ku wanaagsan pronunciation-ka marka laakiin kan isku dayna maanta balnayno halkaas oo dhigno miiskeena dusheeda kadibna aynu sawirno okay waxa jira sawir marka doonayso inaad sawirto waxa loo baahan yahay lighting-kaaga inaad isku hagaajiso oo isku fadhiiso marka two main lights baan isticmaalnaa halkan daaqada hadii eegno waxaan isticmaalnaa key light-ka kiilaadku waxa weeyaan inta badan oo ka soo geliyo iftiinku san hore ku sheegay marka daaqadu wixii dhan marka hore laakiin waxaan isticmaalnaa wax yar ku istigaasa ama bacyaro khafiifa waxaan baahan laakiin inta badan la socda alaabaha la soo iibiyo ayaan ku xidhnay si ay lighting inooga soo geliyo halka ay u yara balance garayso oo mid soft iyo noolo marka halka markaan dhigno lighting kan ku soo geliya waxaan ku support garaynaynaa ring light-kan ku support garaynaynaa marka waxaan doonaynaa light yaro khafiifa oo waliba orange inuu light-kan caadiga ah uu ku soo dhaco marka kan waa blue ayuu yara xiga caadiga ah ee naturalku kana waa si orange marka si orange ay noqoto teal and blue ay noqoto aynu doonaa marka hore orange and teal marka taa markaynu sameeyno qodobkeenu ka yahay waxaan sameynaynaa wax kale imika ma baahnin just intaas kaliya ma baahanahay marka waxaan sameynayaa in yar bin yar sugi doonto sababtoo ah sawirka tan ku qaadaya imka ku duubay oo kamarad kale ma hayo marka walweyn eeginaa sidoo noqonayo sawirkeenu markii halkaas soo dhigno kana aynu ku soo dhaweyno si hadhow tolaalkaas in yar iftiima ay u yeelato si halka uu yeelato kana halkaas oo kale uu ka qabto oo labadooda isku dhex galaan aynu doonayno inaynu u sameeyno ila socdo marka sawir kamarada soo qaadno in spotkii ku fadhiisino waxaan sameynaynaa inaynu manualka soo doorano manualka inaynu dooranayno doonaa inta halka ku qoran tahay sababtoo manualka waxa weeyaan adiga ayaa xukumaya sawirkaagu nooc noqon doona hadhow tahay marka waxaad arkaysaa weli inuu yara midow yahay arkaysaa weli marka waxaan sameynayaa rule of third baan isticmaalanaa dabeetana labada xariiqood kuwaas hore centerka effectka labadaas ayaynu dhexdooda dhiganaa angle baynu macnaha dhiganaa waayahay si halka intersection ku iskaga qaban karo okay dabeetana waxaan sameynaynaa inaynu aperture-ka in yara dalaacno yar baynu hoos u dhignaa 9.0 kale tanna waynu kusoo dhaweynaynaa okay still yaro detail difference adarkasa dabeetana waynu kusoo dhaweynaynaa focuskan kusoo dhaweynaynaa ilaa qoraalka nooga muuqanayo okay in yar baynu ka naaqusaynaa I think that's normal okay then waan sawirnaa haddana waan kusoo dhaweynaa close shot
Okay. Okay. sawirkan saasuu ku fiican yahay malanaya saasaa ku nool mala marka intaasan ku daynaynaa okay so guys videogan intaasuu inoogu eegyahay waxaa jira sidoo kale video kaloo aynu soo wadno insha allah aan soo dhigi doono videoga channelkan soo dhigi doono kaasoo ku saabsan marka aad isticmaalayso imika waxaan isticmaalay 2 light oo kaliya isku balance garaynay laakiin marka aad dhigto waxaan isticmaali doonaa inaga oo background-ka caadiga xitaa ka dhigi doona midabkan waa sababtoo aad doonaysa inaad midab sawirto background-ka midab laga dhigaa doonaysa wax cad baa laga dhigaa si aad dhigto isku qaadato sidoo kale tan waxaan ka dhigi doonaa akhtar oo xagga dambe background ka dhigi doona inaga light fara badan oo kala duwan iskugu dari doona insha Allah soo marka inta ay nooga ekaan videogeeni aad baad mahadsantihiin inaad videoga intaas dhan soo daawatay sidoo kale channelka aad ku cusub tahay subscribe fadlan noo saar oo nagu soo biir oo ka mid noqo community-ga fiican ee creative-ka ee mar walba isku dayda inay waxyaabahan oo kale ay samayso sidoo kale like sar videoga aad ka heshay oo sidoo kale videoga dambe insha Allah intaan ku kulmi doono waa idin shukur barashida peace بصال على خير الوجود